dhowr arrimood oo ku saabsan doorashooyinka ayaan doonayaa inaan halkan ka idhaahdo. waxaana kow ka ah arrinta koowaad oo ah diiwaangelinta. diiwaangelintu dowladdu siday ugu tala gashay, xukuumaddu siday ugu tala gashay waxa weeyaan si caajisa oo ay doonayso in arrimo ay ku hor joogsato oo u noqoto saldhig si ayna doorashadu u dhicin. taasi waxay raad ku samaynaysaa Somaliland oo dhan ayay raad ku samaynaysaa. sida awgeed waxaan ugu baaqayaa dhammaan dhalinyarta reer Somaliland meel kastay joogaan inay diiwaangelinta isdiiwaangeliyaan oo si fiican u qaataan kaarkooga, waayo waa mustaqbalkoodii, waa waxay xaq u leeyihiin. wax meel kale la geynayo oo si kale u taabanayana maaha. arrintaana waa laga been abuuray. meelaha ay waxaasi gaadheenna waxaa ka mid ah Gabiley, magaalada Gabiley ama gobolka Gabiley, oo aan si gaar ah ugu baaqayo dhalinyartiisa oo leeyahay qaata waraaqaha maanta jaaniska ka faa'iideysta. waa kaarkiinii waad la socotaan Jabuuti oo jaar aynu nahay. dhibaatada ka gaadha qofku markuu 18 jir gaadho wixii ka dambeeya dhib weyn baa ka gaadha. marka jaaniska waxaan leeyahay haluminina qaata. isla markaa waxay raad ku samaynaysaa diiwaangelintu haddii ay inaga kharibanto doorashaduna way inaga kharibaysaa. doorashaduna ogaada dalka Soomaaliya oo dhan waxa la yiri waxaan xal ahayn, waxaan doorasho ahayn xal ma aha. idinkana mustaqbalkiina ba ku xidhan. haddii doorashadaasi maanta qabsoomi weydana oo Soomaaliland ka qabsoomi weydana ilaahay naguma keenay. waxaanu aad uga warwarsanahay inay dhalinyartu tahriibku lebilaabmi, dhibto lebilaabmi, qumbula mawquuta oo dhalinyarta shaqaalaantan haysataa ay si lebilaamayso. sida awgeed si ay doorashadu inoogu hirgasho waxaan ku dardaarayaa dhalinyartas dhammaanteed siiba reer Gabiley oo aan muuqata inayna qaadan. anigu waan u xogagaal baan ahay. waa iga dardaaran dhalinyarta aan u baaqayo reer Gabiley oo leeyahay qaata diiwaangelinta kaarkiina, qaata jaaniska degdeg u qaata. xukuumaddu way ka soo horjeedaa. qodobka labaad waxa weeyaan arrinta ku saabsan kordhintu waxa weeyaan barmadow oo ku taala Somaliland. dimuqraadiyadda transitional dimuqraadiyadda aan ku faano ee aan caalamku u sheegnaa had iyo jeer waxay noqotaa tu kufta oo kacda. Somaliland intay wax wanaajiso ayay isqabsataa wiiga dambe, kolkaan jara ka sii dhacnaan haddana ayaan dib u heshiinaa. taasi waa mid inoo record garaysan oo caalamku inoogu yahay. waxaan ka warhaynaa oo aan macadiyad laga jeediyey Ingiriiska aanu ka war helon hataa dhageystay in dhibta noocaasi aanay u wanaagsanayn qadiyadda Somaliland. qadiyadda Somaliland waxay ku iibsamaysaa oo kaliya doorasho xora oo xalaal ah oon madmadow lahayn, oon dib u dhac lahayn, oon kordhin lahayn inay dhacdo. waxaan doonaynaa dalka inaan ku soo rogno doorashadu inay waqtigeeda goorayaan dhacdo. ma aha kulmiyo kaliya. waxaan leenahay mustaqbalka in doorashadu ay dhacdo oo ina one day lagu darin in ay la joojiyaa waxa la yiraahdo kordhintu. qodobka saddexaad waxa weeyaan axsaabta qaranka iyo madashu waxa soo raaceen inay dhisaan dawlad ku meel gaara haddii doorashadu dhici weydo. waxa arinta loo rogay oo dawladdu u badashay in ay fadqalala tahay oo dawladda la baabinayo. taa macnaheedu waxa weeyaan dawa ka dhacda wadamada in la dhiso dawlad gaarsiisa, xukuumad gaarsiisa doorasho gaarsiisa. laakiin waxyaabaha meelaha wixii ka sameeya political bosses oo dhammi sidoodii inay ahaanayaan weeyaan. dadka yaan la qaldin. kulmiye wuxuu ku yahay professional ku yahay waxaan la yiraahdo moogtay cagsaata. ummadda markaa in la qaldo maaha oo la rogo arrinta loo jeedo ee saxda ah waa mid xaq loo leeyahay. hadday doorashada qaban weydana waa mid aan laga soo noqonayn, waa mid aan la ogolaanayn, waa mid aan wixii ka dhacana iyadu mas'uuliyadda qaadi doonto. waxaanu markaa ka digaynaa doorashada oo dib loo dhigo carqaladahan ay hor dhigayso ama commissionka ha noqoto laftiisa oo farfarayn la timaado ha dhow, ama ha noqoto arrimo kale oo
ay ku tabcaynayso oo aanu ognahay imikada ayna wado dowladdu doorashooyinku waqtigooda ha dhacaan baanu leenahay arrimaha kale ee dalka ka jirana ama ha noqoto isku shaandhayntan waxaan u aragnaa isku shaandhayntaasi mid aan qiimo u lahayn dalka iyo dadka toona waayo dhibaha jira ee ka jira wasaaradaha ee la tabanaya dadka ee ama gobollada galbeedka iyo barigu tabanayaan ama waxyaabaha adeega oo keli ay ka mid tahay adeegyada waa waxba kama tarayso arrimaha oo dhan marka la isku soo gabagabeeyo waxa weeyaan laa yusminu walaa yughni min juuc arrinta isku shaandhaynta madaxweynuhu wax qiimo ay dalka iyo dadka toona faa'iido u leedahay uma aragno waa arrin lala soo toosay ambaabura asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu